inta aan filin daawanayay ee Soomaali filin jilayso wuxuu ahaa filinka kaliya ee indhahayga ilinka keenay أنا بحال كسحدي حقيقة لكن أرنت كلام معجزة لي أنا رأينا كل وذا واحد هاي مركا أجوكتو دقيقة دا أفر دقيقة يلا بعتن سكين واحد جرميد كميدا كهاركتر هذا أما أكتر هذا كميدا يعني جلياشة فيلينغ كميدا أو قصة موقنا يا قيبتاز نيك مسكين كا ما قد سيدا هاي حلكرتي لكن ما أنت وحلود لي أنا قبل درتيس قبل كينو أسنا قفريقي سلو داعي وقارب تياشي أيام قوسا وليو ninkaas wuxuu kamid ahaa dadkii jilay filinkaas wacyigelinta ah oo ka sheekeynay dhibaatada ay leedahay in dad loo dilo aana qabil yaani filinka halku dhigiisu wuxuu ahaa lama arag nin loo aaray oo il ka soo baxay yaani inta u aarteen oo qabil dartii lagu aaray ninkii soo baxay lama arag qisada filinku waa qiso ka sheekeynayso laba nin oo saaxiiba oo labadooduba ay u dhiman doonaan aana qabil darteed mid baa loo dilayaa aana qabil dabeedna kaasna waxa loo dilayaa saaxiibkii dartii filinka mar raba inaan kaaga hor dhaco qaybtan linkiga ku soo dhigaya qaybta commentiga ku soo dhigaya halka ka daaw waxa mudaa filinkaani qiimihiisa iyo yaani miisaanku uu ku fadhiyo inuu san helin yaani dadkiisa inuu san helin wacyiga iyo bulshada u baahnaan inuu san gaarin laakiin filinkan waa waajib qof kasta oo Soomaaliya inuu daawado si ay maskaxdiisa uga bedesho wallahi been kuma sheegay aad daawado filinka waa ilmay sababtoo ah waxa uu ka hadlayo iyo sababta dadku u dhimanayaan iyo raqiisnimada qofka bini'aadamka naftiisa loo jarayo wax la qaadan kara ma kaaga darana mucjisada filinkan uu sameeyay wax weeye in jilayaashiisa mid kamida sabab kala yeelkadeed god haduu ku dhici la wax la yaqaan way laakiin aana qabil darteed baa loo dilay wixii uu ka hadlayay shalay oo lahaa waryaa la sameeynin war iska daaya hatta filinka roolku uga jiray ma ahayn rool asagu oo mataliye kan wax dilay wuxuu ahaa rool uu taagnaa inuu lahaa waryaa ninkan hadilinina maskiinka isagoo waliba ka celinaya koox qabiilkiisa da filinka daawata waa arki doontaa meeshan waxa ku soo dhigaya marka nin shucuurtiisi ku muujiyay hab faneed ku muujiyay oo dadka u soo bandhigay oo taagan bariya ka ah qabiil in qabiil dartii loo dilo ka war ninka maanta uu gacantiisa ku maqayaan ka war ninkaas oo u dilay hebel reerkeenu dileen shalay war Soomaaliyeey qabiilka waa ka dhalan nin walba ilaaha qabiil ka dhalay alxamdulillah waa ku faana qabiiladan ilaaha naga dhaliyay laakiin nidaamkaas dunida qabiilka looga dhaqmo ku dhaqma bil cali war maanta qoom anaga naga hanti badana qabiil ku wada dhaqma maanta carab marka la yiraahdo reer hebel iyo reer bin hebel iyo reer bin hebel u wada nool yihiin hatta waxay u dagaan magaalooyin laakiin isku ma dilaan Sacuudi Arabiya tag reer hebel u dagaan waa isku faanaan gabdhahoodu waa ku kala qaalisan yihiin laakiin isku ma dilaan waa isna mad galiyaan sababtoo ah way isku soo dileen natiijada soo arkeen faana uga soo hartay Soomaaliduna dhaqankeedu sidaas ah qabiilka waan isku xeeri jireen waan isku xifaaleen jireen qofku markuu ku soo martiyo oo ku yiraahdo reer hebel ahay inuu saciib kaala tagin darteeda si wanaagsan loo soo jiray waa la nabad gali jiray qofkaana markuu reerka imaado waa la magangaliyay jiray wax leeyahay magangaliyo martida iyo dadka iyo lama dili jirin hatta hadii dagaalka reeraha colaad ka dhaxayso qofkaas magangaliyada waxa la oran jiray birmageydo waa lama taaba jirin qofku gurigiisa ku hoydo maanta looma soo gadaal mari jirin dhaqankeena soo bana aaway Soomaalidu war waa hadii la ku imaay waa la dagaali jiray colaad waa dhaxmari jirtay laakiin aanadan aan loo meel dayeenin oo maanta qof kasta la iska dilayo oo hebel yaa loo fiirina war qofka mashiiqa ma diila ma macalina ma ardaya looma fiirinayo hebel ma taha kaalor dhimo xagee u socotin Soomaaliya war qabiilka isku waa la isku xifaalaya waa lagu xifaaltama waxa artiin isdhaha reer hebel anaga buusnay dhaha daartiin laakiin billahi alayk isnabad galiya maxaa isku dilaysaan maxaa idin dhaxyaan war nabad ku wada jooga war reeriina ku faana war waxa ku faantiin magaalada ka qurux badan war waxa ku faantaa ana ka isbitaal badan war waxa ku faantaa ana diilay ku imaayo ka nidaam qurxan war waxa ku faantaa ana ka ganacsi badan ana ka hanti badan ana ka gabdha qurxan ana ka wiilal diilay ku faan waxaas billahi laakiin iska daaya qoragaan xabadan iska daaya xal kuma jiro isxifaalay laakiin xabada joojiya war ilaahay ka cabsada war joojiya war maxaad kala hadlayna war hadda rooba daay Soomaaliya abaara laga soo baxay waa xilliga ilaahay loo mahad celilaha waa xilliga la dhahay ilaahu aadna soo waraabiyay waa mahadsan tahay la dhihi alxamdulillah salaado sunnah loo dukalaha salaatu shukr la dukalaha la dhihi ilaahu waa mahadsan tahay hadda isku dhaqaaqayo aroortii isku jarmaadaya habeenkii isku mid kasta markuu neefkiisu coos afka galiyo markaasuu raadina kii walaalkiisa inuu soo dilo maxaa isku dilaysaa kulay muuqaalkayga waa ku soo gaaraya qorayna dheego ku saaran yahay hadaa rabta hadaa qorsheynaysa caaw inaa min walaalkaa soo disho iska daa walaalo iska daa muuqaalkayga dartii ku daa ilaahay ka cabso jooji naara ka horeys maxaa ku dilaysaa muxuu ka dilay
haddaa maanta hebel oo isku qabiil lahaydana u soo aarto oo nin hebel kale u soo disho ma iilku ka soo baxaya lama arag nin loo aarahe oo iil ka soo baxay ma aragta adigu ma aragta hebel iyo hebel iyo hebel waliga u aar ilmu ka soo baxay waa may miciil baa kugu deynaya waa may waa kugu sii kordhaya sababtoo ah biriya adigana waxa laga dilayaa ugaaska iyo ganacsadaha iyo midka muhiimka kuwa war isdaaya Soomaaliya war haddana isdaaya oo daaya dadka birmageydada daaya hadda ninkaas oo kale waxa lagu dilay nin qabiil maaha ma taageerin raalli kama aha wixiisa waa cadeeyay maalin cadu la soo istaag anu raalli kama ihi filim ka sameeyay wacyi gelina raalli kama ihi maxaa ku dishay marka hadda maxaa ku dishay maanta asagu maanta rukuub aqrooba haystaabe adiga maxaa ku nolola waa dishay maxaa ku nolola waa dishay maxaa ku dheef war aqliga xisaab Soomaaliya aqli ku dara baash war baash aqli ku dara war isdaaya walaalow war isdaaya war ilaahay wuu noo naxariistay musiibooyinka deegaanada ku dhacay ummadiisa oo dusha ka saaro dhan ilaahay anaga waa naga nastaa inaan ilaahay alxamdulillah fiiri dhulkan dhul gariir kama dhaco duufaana kama dhacaan hadii ilaahay fulkaanooyin kama qarxaan abaar yar oo laga yaabo in 4 sano ama 5 sano ama 10 sano mar imaato aw adkaysa lana meeshii ina alxamdulillah niraayahay ba isdileena ka war hadii duufaano qofka 80 kiilo qaadanaya hadii lagu soo daayay ka war bal arag wadamadan Aasiya iyo Yurub iyo wax ka dhacay arag shaqooyinkooda ay waxa laga yaabaa inaysan 2 bil guriyaha ku soo bixin la yiraahdo duufaanaha soo socday ha soo bixinina fulkaanooyin dhul gariir war jooga Soomaaliya war jooga war istaaye war musiibaha raadsanina war balaayaha noo goobinina war qalbigeena dareen ha galo bil caleeg isdaaye wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh